doorashadii 15 May ee Soomaaliya waxa ay lahayd diiwaano iyo casharo siyaasadeed oo ka dhashay. dabiiciyan siyaasadda Soomaalida ma laha joogteen afkaareed, midnimo aragtiyeed iyo xulufaysi madbac ku dhisan. qabyaaladda iyo haybta ayaa ah xudunta isku xidha dhammaan saamilayda siyaasadda. danaysiga iyo helitaanka dheefta siyaasadeed ayaana marar badan u muuqda kuwa keena isbeddelka iyo isku guurguurka saaxiibada siyaasadda. Soomaaliya 4 sano ee na weydaartay waxaa lagu arkay isla socosho siyaasadeed, waana xiriirka Madoobe iyo Siciidani madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. labada nin oo adunta xiriirisay ee ahayd culayska siyaasadeed kaga imaanaya Farmaajo iyo dawladdu uu hogaaminayay ayaa si aad ugu dhow isula shaqeeyay, waxayna wada dhiseen xiriir qofeed oo loo jilay middan wadaag ah, maamulnimana ku dhisan. xididkiisa waxaa laga aasay afmado ilaa iyo afaafka xeebaha bari. dadka ka aragtida duwan Dani iyo Madoobe ayaa u arkayay xiriirkooda mid aan lahayn ujeeddo dhaafsan Farmaajo. doorashadii dhacday May waxa ay keentay in labadii siyaasi ee in badan iska rabsaday mataanaha mar ugu magac daray maamuladooda aysan maanta isu dirin salaanta. Dani oo mar ahaa jilaaga ugu weyn ee siyaasadda ka dhanka ahayd madaxweynihii hore ayaa maanta ah dhibanaha ugu weyn ee dhaxalkii Farmaajo dabadeed. Siciidani waxa uu horkacay inuu miiska talada keeno Axmed Madoobe oo go'doon ku ahaa Kismaayo, marnaba u muuqday inuu madaxiisa dhaafsanayo maamulka Jubbaland. ayaama loolan iyo isgarabsi siyaasadeed kadib, Madoobe ayaa naqshadeeyay farsamadii Siciid siyaasadda dalka looga fariisin lahaa. baahinteennii hore waxaan idiin sheegnay in madaxweyne Dani uu meel iska dhigay qabashada iyo ka warcelinta xiriirka hadalka ee kaga imaanaya dhinaca Axmed Madoobe. saaxiibada Axmed Madoobe ayaa dhankooda xaqiijinaya jiritaanka xaalad kale aamin baxa. waxaan kuu sheegi karo waa in labada madaxweyne aysan salaan isku dirin kadib magacaabistii Xamse iyo baadigoobkii ra'iisul wasaaraha. dhexdoodana waxay u muuqataa inay ka baxeen dhammaan cid kasta oo qaysaamayn ku lahayd, ayuu yidhi mid ka mid ah siyaasiyiinta khusuusida u ah Raas Kamboni. madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu ka fakarayaa safar uu ku tago Garowe ka hor Agoosto, balse habdhaqanka Dani iyo shakiga xoogga leh ee Siciid la soo baxay ayaa khasbaysa inuu Garowe booqasho ku aado. waxaase macquul ah in uu Dani ka cududaarto ugu dambaynta. Xamse oo imika fadhiya jagada Dani carada xoogga leh ka qaaday ayaa isku hawlaya in Garowe oo ka bilaaba safarkiisa gobollada dalka. haddii sida hadda Puntland iyo Jubbaland u kala taagan yahay jawigu ahaado, waxaa meesha ka bixi doona safarada dhammaan qorshaysan ee Garowe ee ay maanka ku hayaan Xamse iyo Madoobe. fantasiyaha 1 Agoost ayaana macquul ah inuu sanadkan koobnaado abaaraha jira awgood iyo in Dani kaga gaabsado dirista casuumaadaha madaxda dalka oo aan marka noqon doonta kolkii koobaad oo Puntland ay tirsanayso dhaawacyo siyaasadeed oo ka dhashay isbeddel ah in badan gaaristiisa u socdaashay. hadda su'aal xooggan ayaa la dul saarayaa, ma sii jiri doonaa iskaashiga Puntland iyo Jubbaland oo dad badani ay horay ugu eedeeyeen inuu saami qaybsi beeleed ku dhisnaa. ha yeeshee madaxweyne Dani iyo Axmed Madoobe oo ekeysiyeen afkaar siyaasadeed oo dhinacyadu ay ku midoobeen. ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.